waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xiriira doorashooyinka ka qabsoomay meelo kamid ah dalka ayaa ka imaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaa'ilada qaarkood intaas waa ka wada dheregsanahay waan ognahay cabasho ma dhamaanayso laakiin waa inaan u feejignaana aan la soconaa cabashada waxay tahay saan la socoteena habraaciya iyo heshiisyada doorashooyinka waxaa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood midda koowaad oo ah madax bannaanida gudiyada doorashooyinka waxaan rabaa saddexdiina gudi inay madax bannaan yihiin aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada waxa kale oo jirto ilaalinta habraacyada doorashooyinka waxaan sameynay madasha oo dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha habraacyo lisku waafaqay oo la saxiixay ayaan cid ka sarreyso ama ku xadgudbi karta malahan waxa kale oo nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka markasta waxaan u taaganahay cadaaladda laakiin cadaaladda waa in la maraa wadadeedii wadadaas markii la maro ayaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadkana ay xalinayaan ay marsiinayaan wadada ku waajibka saal la socotaan mas'uuliyadda ilaalinta hufnaanta doorashooyinka waxaa kamid ah ilaalinta madax bannaanida gudiyada doorashooyinka waxaa ka mas'uul ah madaxda gudiyada doorashooyinka waa in aysan cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed hadday tahay siid hadday tahay fiid hadday tahay khilaafaadka faragelintaas siyaasadda meel ay idinka soo gasho malahan waa inaad u hoggaansanaataan kaliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiyo oo aad haysataan iyadoo qoraal ah Soomaan madaxda dowlad goboleedyada waa in ay gudiyada ku dhiirigeliyaan in doorashadu u dhacdo si hufan kuna shaqeeyaan madax bannaani taas waa waajib saaran madaxda dowlad goboleedyada ilaalinta iyo korjoogteynta ku dhaqanka iyo hirgelinta habraacyada doorashooyinka waxaa ka mas'uul ah guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka waxaana waajib ku ah in ay hubiyaan in gudiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan habraacyadii lagu heshiiyey wixii ka qaldamaana ay saxaan waa waajib saaran saal la socotaan hufnaanta doorashada waxaa ka mas'uul ah guddiga xalinta khilaafaadka oo runtii lafdhabar u ah in ay doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waa in si cadaalad ah guddiga ugu garnaqaan cabashada doorashooyinka waxaan sidoo kale rabaa idinka ayaa garnaqi meesha ah dadka musharaxiintana waxaan leeyahay meediyaha la tago ama raadiyo laga soo hadlo ama Twitter ama Facebook wax lagu soo qoro ma ahan hab dacwo loo soo gudbisto dacwada nidaam iyo habraaci leedahay diyaar ayaan u nahay haddaan nahay dawladdi hadday yihiin gudiyadii doorashooyinka in dacwadaada loo maro loo qaado habkii habraaci u dhigay waxaana mas'uuliyadaas ay saaran tahay guddiga xalinta khilaafaadka oo mas'uulka ah wixii cabasho ah waxaana in iyaga loo soo gudbiyaa marka waxaan rabaa in aad u sheegtaan markasta musharaxiinta cusub oo soo damcaya soo dalbanaya kuraasta cusub oo mustaqbalka imaanayso oo wiigga ka xiga soo gudbinaya idinka waajib ayaa idinka saaran in aad u fasirtaan waxa ay yihiin iyo habka ay u marayaan habraacaas xalinta khilaafaadka iyadoo la tixgelinayo arrimahaas aan soo sheegnay waxaan farayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed in ay ilaaliyaan madax bannaanida doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraaca doorashooyinka waana in ay ogaadaan in lagula xisaabtamayo wixii musuqmaasuq ah oo ay ku kacaan aniga ra'iisul wasaare ahaan marna ma aqbalay wax musuqmaasuq ah hadday tahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed hadday ku milmaan madaxda marna kama yeelayno waan in aan ogaanaa inaysan ku milmin ayna xor ka yihiin waxaan leeyahay madaxda dowlad goboleedyada fadlan doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan waa inaad ilaalisaan madax bannaanida doorashada oo ay mas'uuliyaddeedu tahay gudiyadii aan soo sheegnay oo ah heer dowlad goboleed heer dowlad federaalka ah iyo guddiga xalinta khilaafaadka saas ayaan u sheegayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa mahadsantihiin markastana waa idin garab taaganahay wabillahi tawfiiq guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa maanta magaalada Baydhabo ku qabtay doorashada 3 kursi oo ka mid ah
11 kursi oo dhawaan ay sheegeen in toddobaad gudihiisa doorashadooda ay ku qaban doonaan magaalada Baydhabo. Kursiga koowaad ee maanta magaalada Baydhabo lagu doortay ayaa waxa uu ahaa kursiga lambarkiisu yahay Hob 182 kaasoo ku tartamayeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo musharax Faysal Ibrahim, iyadoona boqolkii erga maanta codadka ay ka dhiibteen kursigaasi 88 cod ka mid ah oo ku guuleystay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, saasna uu ku noqday xildhibaankii koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya laga soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida uu ku dhawaaqayo xubin ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed. waxay kala tahay boqolka qofood ee codaysay 88 ka mid ah waxay u codaysay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. saacadka gadaal ha noo ahaado natiijada anagoo aan dhameeyaan sacbin filis. sidoo kaleeto Faysal Ibrahim Xasan wuxuu helay eber. wadarta codadka halaabay waa 12 codod. sidaas waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas ku soo baxay mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. marka hore waxaan u mahadcelinayaa ergada beesha kursiga iska lahayd. kursiga nambarkiisu yahay 182 oo ii dooratay inaan ka mid noqdo baarlamaanka 11aad. waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono horumarkiina. waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono horumarka dalka. waxaan u mahadcelinayaa guddiga maamulka doorashooyinka oo xaqiiqdii si hufan u qabtay kursiga 182 tartankiisa. waxaan leeyahay si ay ku dheehan tahay deganaan iyo cadaalad ayay u qabteen. meeshan waxaa ka muuqata in si dimuqraadi ah loo tartamay. guddigana waa u mahadcelinaya. waxaan kaloo u mahadcelinaa ciidanka amniga oo sugay doorashada amniga. iyagana aadan ugu mahadcelinaya. runtii waxaa in loo mahadceliyo mudan maamulka Koonfur Galbeed oo runtii si xushmad iyo qadarin leh noogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo si aan uga qayb qaadano doorashada baarlamaanka 11aad. doorka ay leeyihiin maamulka Koonfur Galbeed waa door mudan in la amaano. waxaan leeyahay annaga waxaan matalaynaa shacabka ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan u ballan qaadaynaa isteedka aan ka soo jeedno ama maamulka aan ka soo jeedno inaan baarlamaanka ku matali doonno. aan muujin doono kartidaanada iyo matalaad dhaba oo aan matalayno Koonfur Galbeed. aad iyo aad u mahadsantiin. sidoo kale waxaa magaalada Baydhabo lagu doortay Foosiye Sheekh Maxamed oo iyana ku tartamaysay kursiga lambarkiisu yahay Hob 171 isla markaana ku guuleysatay mar kale kursigani. kursiga u dambeeya ee saddexaad maanta doorashadiisa ka qabsoontay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku soo baxay Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor oo horay dowladii ku meel gaarka ee Soomaaliya ka soo noqday xildhibaan iyo wasiirka ganacsiga dowladdaasi. noo dhamaatay waxaa soo xaadirtay 101 ergaa. si guud ay u soo xaadireen wax ka maqnaa ma jirin. 7 warqadood oo codbixine waa ay halaabeen. Zakariya oo la tartamayay Saransoor waxa uu helay 12 cod. Aadan Maxamed Nuur Saransoor waxa uu helay 82 cod. sidaas darteed kursiga tirsigiisu yahay 170 maanta kadib waxaa matalayo Aadan Maxamed Nuur Saransoor. asagana waxaan Ilaahay ugu baryaynaa nin ka soo baxa inuu noqdo matalaadaas uu matalayo shacabka asaga uu ka soo jeedo oo kursiga iskale 170. dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay
dooda ka taagan kursiga lambarkiisu yahay Hob 103 kaasoo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay gudoomiyihii hore baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaare isla markaana uu sheegay in loo diiday inuu ku tartamo kursigaasi. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa tilmaamay in aanan jirin wax cabasho ah oo guddiga xalinta khilaafaadka loo soo gudbiyay ee ku aadan muranka ka jira kursiga 103 ee ku fadhiyay gudoomiyihii hore baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaare. taas hadaan ku gudbo annaga ilaa hadeertaan maanta la joogo oo 27 bisha ay tahay iyo maalinta imaanay laga bilaabo wax dacwo ah oo naga soo gaartay in kuraastaani lagu qaban doono koonfur galbeed ma ay jirto. si official rasmi ah noo soo gaartay ma jirto. Guddigu waa guddiga u taagan meeshaan waxa uu nimid annaga ma ahan inaan doorasho qabanno, ma aha inaan qof diiwaan gelino, ma aha inaan maxal lahaa arrimahaas oo dhan shaqadeena ma aha. Shaqadaas waxa uu igman waa guddiga siid iyo guddiga fiid oo hawshaas la qabanaya. Laakiin annaga waxa uu joogno meeshaan waxay tahay waa xalinta khilaafaadka tabashooyinka ka imaan karaan doorashooyinkaas la qabanayo. Ilaa hadeertaana waxa cadeynaynaa inaysan soo gaarin wax cabasho oo ku saabsan kuraastaas oo dil. Waxaan rajaynaynaa in cid walba oo tabasho qabto in ay guddiga si toos ah loo soo xiriiraan albaabadooda ay u furan yihiin cidna aysan hor istaagaynin cidna aysan oranaynin in xaq uma lihid ama xaq u leedahay leeyahay qof kasto u soo cabada oo ka soo cabanaya in sifo sharciya oo habraaca ay guddiga dejiyeen ee ah xalinta khilaafaadka doorashooyinka golaha shacabka soo marta diyaar ay u yihiin guddiga inay xaliyaan. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Somali Cable TV, magaalada Baydhabo. waa wadayna doorashada Britoolana kursiga uu yiri fit gudoomiyaha cirra wala joojinaya halkii uu yiri waxaan u aragnaa warqadaas inay sharciyeen Britoola subaxii 2 saac kursigaas waxa lagu qabanayaa meeshan hadda taagana lagu qabanayaa wax sharciyad ah oo u haysto cirro inuu kursigaas joojiyo ma jirto. haddii sharciyad u haystaan hanuu qanciyo ma uusan nala tashan ma uusan noo sheegin social media kama maartay communication ma aha guddiga barbule oo ku kulmo telefoonada jiro inuu wax noo sheegay wuxuu noo sheegay ma jirto. inta hadda aan ka soo sheekeyno waa la soo maray wax ka duwan lama soo marin. Maxamed Cusmaan Jawaari qof muslim oo Soomaali ah oo ninkii ugu weynaa koonfur galbeed ah waay ninkii ugu cilmiga badnaa waay ninkii maaragtay aan qadarinta iyo mudnaa waay kalmadaha ka soo yeeray horta anaga ma aan mudneen laakiin aniga waxaan mar labaad leeyahay gudoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari haddii lagu dulmiyay anaga kuma aan dulminin haddana diyaar aan ku nahay in lagu qanciyo haddii wax ka qaldan yihiin haddii wax ka qaldameen iska sax haddii hore wax ka qof ku dulmiyay guddiga uu jirana si cad u sheeg meesha lagu dulmiyay si lagu dulmiyay marka waxaan cadeynayaa shirkayga jira inuu ku saabsanaa arrintaas ay ahayd.